سيدي لبادين حديث النبي نوغو شيغي في السنن نبا نين دولكا ايبيي دولكي markuu gatay waa dul beereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahab markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay oo la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yiri war dulkaad iga iibisay dahabka inta leeg baa ka soo baxee malaha waadi lowsaneed iga qaada buu ka yiri markaas uu may anu kuma ogeyn adaa ilaahay ka siiyay adaa iska qaada buu ka yiri وروحان أديك عليه إيقاظه إنك الزمن كأنه معي وروحان أنيق عليه السي وينتين وحكوت تقلمين دول كان أنيق عليه قري كان أنيق عليها مهرة أنيق عليها وحان أنيق عليها بس كويس سنة إياكو وحيد تاجنا ينتدكم مركي حقاقين وروحان أديك عليه إيقاظه إياك قادن مايو ماي بدي عكرته ماي هذا إسكاله هذا إلهي كوسية إسكا قاضو may dhulkan adaa iga iibiyay malaha waad halmaamsantay adiga iskale iga qaado waxaan mali anigu yahay lacagta inta leegna anigu kuma siine may labadii nin inta isqabsadeen bay maxkamadda tageen hay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kale leh ha iga qaato kana wuxuu leeyahay war maliye isaga ilaahay siiyay ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa قضاء الزمن كان لقى يا بيني أورن لها حولها دولة ده لسه كيانا إذا غرب أسكت في عنوي جيراني لكن كود ده وعسكت جرا دولة ده وش غير موقتها حولها دولة ده أسكت كيانا ألقى كم بحينكونا مورن وعويري هذا محل لها أوبد ويل هذا يقولنا قبل لا بد أسكت غوريا لا بد أنا حولها صيب الفرس إصلاح هو عجيب هل كان هذا إصلاح هذا عجيب هل كان هذا حماة لكن ده يصير قصة كله صدق نبى النبي عيسى عليه السلام سيدي ولا السعودين أي مادين مال بنانك وذهب كيالو دايماًكم مركز النبي عيسى كويل وحن ودايماً والذهب والجوهرات مركز سيد هذا النقاط مركز النبي إلى هاي صدري هي أدوية مال موضة مرتبو كيدي مركز ده أنا كقاعدنا هنا ده هذا القاعدة تاني راعي مسان واديك هدين وقاعد بودي ديني أدوية اسمه راعي أبو كيدي والنبي الزاهد والنبي عيسى عليه السلام صدق دين ويكهرين بل النبي أي انضر ذاك برقاس الذهب كي قاتان وإلا السعودان وإلا اللقيين مقالة دي مركي ودوا هذين بير هذين حدان مالين قال له ولا نقدعي هبينهم كبقنو لكن وقاجونينا ويتشدين وعيد هذا الله بالذهب كاسي إلى للسوء من مقالة دي انتو تقو cuntahay noo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankii ba dhiigga bini'aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabka labadeena buu nagu fiican yahay ninka markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halka ka gali maydkiisana bahasha ha ku ridno ha ku aasno dahabkana labadeena ha kala qaadano marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisa ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoo buu kugu fiican yahay cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadii buu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam waryaada buu nebi maxamed uu ina leeyahay dhegay jidhka bini aadanka waslad baa ku jirta hadday hagaagto jidhkoo dhan baa hagaagi hadday baanaatana jidhkoo dhan baa baanaanoo xumaan taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi qalbigana wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa kaliya hagaajiya waa markay degto ilaahay macrifadiisu macrifatullah Uthman bin Affan Allah raalli ka noqday addoomihiisii addoon ka mid u yeedhay maalin wuxuu yidhi lacagtan qaad